kulanti wacan wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku eegayno horumarka iyo maamulka suuban ay ku tallaabsadeen bulshada ku dhaqan gobolka Goday ee dowladdeegaanka Soomaaliya ka hana qaaday deegaanada iyo dalkaba annagoo socdaal shaqo ku tagnay gobolka Goday ayaa waxaanu la kulanay iyadoo maamulka degmada Goday uu tababaro ku aadan maamulka suuban u qabtay bulshada qabalayada degmada Goday isla markaana kor ugu qaadayo ka qaybgalka ama ka qayb qaadashada horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban inay yeeshaan aragti midaysan jawaab bixinta ka saaran fikradaha kala duwan ee bulshada cadcadaanta dimuqraadiyadda la xisaabtanka cadaaladda sareynta sharciga iyo firfircoonida gobolka Goday oo ka duulaya waaye aragnimadii hore ayaa waxa uu gobolka Goday bilaabay hanaan dimuqraadiyad iyo geedi socod cusub oo ka casriyaysan kana horumarsan kuwii sanadihii hore kuna dhisan dabagal xisaabtan toosin iyo turxaan bixin isla markaana ka hirgalay qorshe horumarneed gobolka Goday sidoo kalena nabadgelyo iyo maamul suuban taasina waxay keentay in gobolku uu sanadkan ku tallaabsaday horumar aad u weyn oo dhinac walba leh sida horumarka nabadgelyada maamulka suuban iyo dimuqraadiyadda kuwaas oo laga soo hooyay guulo la taaban karo haddaba waxaan wax ka weydiinay faa'iidooyinka uu leeyahay tababarada noocani bulshada qaar ka mid ah kuwa ka qaybgalayaasha tababarkani ana horta magacayga waxa la yiraahdaa Kaltuun Cabdulle Maxamed waxaan qabiir u shaqeeyaa xafiiska arrimaha haweenka laakiin maadaama hadda xafiis madaxeedkii uu maqan yahay waxaan hadana ku sii xafiiska arrimaha haweenkan hadda ahay waxaan ku leeyahay tababarka dhaadhicinta maamulka suuban qabalayada iyo sabqabalayada iyo ku saabsanaa marka waxaan ka faa'iidnay maadaama bulshada ay u badan tahay dad xoolo dhaqato ah oo guuraa inta badan ay u badan yihiin qabalayadana ay naga durdurugsan yihiin waxaan ka faa'iidnay sidii aan macnaheedu u dhaadhicin lahayn maamulka suuban ee maanta ka kaalin qaaday deegaankeena qaabkan u dhaadhicin lahayn baan ka faa'iidnay oo naloo kala qeexay qaabka aan qabalayga u maamulayno ama guddiga qabalayga aan ka dhisayno iyo kuwa sabqabalayada aan ka dhisayno iyo qaabka aan iyagana aan maartay aan ula kaalin qaadayno ayaan ka faa'iidnay oo naloo sharaxay magacaygu saxan marka hore waxaa yiraahdaa Axmed Askar Cabdiraxmaan waxaan ahay afayeenka baarlamaanka ee degmada Goday runtii tababarkan aad iyo aad ayaan wax uga faa'iideysanay waxyaabahan ka faa'iideysanay waxa kamid ah dhaadhicinta qabalayaasha sidii gabadhii ugu horeysay ay u sheegtay shuruucda xisbiga oo baranay iyo waxyaabo kale oo badan dhinaca doorashooyinka habka macnaha loo qayb qaadan doono shacabka uga qayb qaadan doonaan dhinaca qabalayaasha iyo waxyaabo kale oo badan ayaan ka faa'iideysanay tababarkan waxa kale oo wax ka weydiinay ka qayb qaatayaasha tababarkani diyaar garowga ay ugu jiraan ka qayb qaadashada doorashada heerka qaran ee fooday nagu soo haysa maadaama ay yihiin kuwa wax dooranaya ama la dooranayo hadda waxa la yiri doorashadii heer kilil iyo heer degmo iyo heer qabale ya doorashadii sanadkan loo kala saaray insha Allah saan rajeynayno saddexdaba way ku jiraan heer degmo ilama iyo barigii horena waxaan ku lahayn ilama 18 iyo 19 nooc waxay ahaayeen maanta laakiin waxaan diyaar ugu nahay boqolkiiba 30 sidii nala sheegay inaan kaalintaana sidii uga qayb qaadan diyaarna waan u nahay dad badan way diyaarsan wayna sharaxeen xisbiguna wuu soo diyaariyay haween badan kuwa sabqabalayadana iyo qabalay hoosaadiyadana waaban annaga inta badan inaan anagu qaadanaa rajaynayna oo taayadu wax nagu haystaba wuu yar yahayba taawaan anaga aad baan maartay u soo dhaweynayna annagana kaalintaanada waan ka qaadan diyaarna waan nahay heer kalena way ku jiraan inay hal gabadh ku jirtaan maleynaya hadda hirgelintan maamulka suuban waxaa sidoo kale uu haweenka gobolka Goday u suura galiyay in ay ka qayb qaataan hawlaha ku aadan iyaga isla markaana madaxa xafiiska arrimaha haweenka dowladdeegaanka Soomaalida Marwo Faadumo Maxamed ay u soo bandhigeen in uu maamulka suubani wax walba oo fursad u leeyihiin haweenku in uu u dhaqan galiyay maamulka suubani kadib markii ay booqasho hawleed ku soo martay haweenka ku dhaqan gobolka Goday taasoo ay haweenkaasi ka wada hadleen madaxa xafiiska arrimaha haweenka xidhmada horumarneed ee lagu horumarinayo haweenka xoolo dhaqatada iyo boolisiga haweenka sidaad ogsoontihiinba waxaa jirayay cadaadisyo kala duwan oo haweenka iyo ragga iyo bulshada deegaanka Soomaalidaba gumaysi haystay ama cadaadis saarnaa waqtiyo fara badan ayaa jiray kadib markii laga baxay cadaadisyadaas waxaa la raadiyay haddana in xal loo helo cadaadisyada goonida ah ee bulshadu ku haysa haweenka waxaan ogsoonahay in package-ka la soo sameeyay ama xirmada lagu horumarinayo haweenka xirmadii waxay u baahan tahay in la fuliyo waxay u baahan tahay in haweenku kaalintooda ka qaataan
waxay u baahan tahay in siday tahay maamulku u qaato waxay u baahan tahay xabsiyada kala duwan ee degmadu in ay qaybahooda ka qaataan xirmadan oo ah halkii lagu xalinayay dhibaatooyinka haweenka haysta hadday yihiin dhanka dhaqaalaha hadday yihiin dhanka bulshada hadday yihiin dhanka siyaasadda dumarka yaryar ee gabdhaha ah iyo dumarka waaweynba inay wax bartaan waa shay muhiim ah in jahliga laga baxo haweenku waxay kaalintooda koobaad qaadan karaan oo dhan walba ay buuxin karaan markay wax bartaan haddii laakiin cilmigii aan ka marannahay meelo badan baan ka maranno ka maqanna waxaa lagama maarmaana xilliga hadda in caruurta cadaalad loo sameeyo iskuulka la wada geeyo ilmaha wiilka iyo gabadhaba oo ilmahaas waa dadkeenii soo korayay oo innaga waxayna tari lahaa weeye annagu waan sii soconaa iyaguna way soo socdaan in ciyaalka wax la baro oo gabdhaha wax la baro waxaa kale muhiim inay haweenku waxbarashadu in laga dhinta ma dhammaato haweenka waaweyn inay wax bartaan waxaan kula kulmay degmada fiilto dumarkii aan la kulmay gabadh baa ku jirta waxay tiri waxaan idhi markaad wax barataan haddiinaan wax baranin maxaad qabataan ganacsadaana dayn ma bixisaan haa dadka daynta in ka qaata yaa idiin qora magacooda iyo intaad ku leedihiin ayaga naga qaatay baan dhahnaabay tiri hooyo oo noo qoro intee in la-egba marka aamin jiraa hoo qofkii wax iga qaatay adigu ii qor wixaan kugu lahaa intee in la-egbu wax saxa qori qofkaas intee in la-egbu si qofka kaa qaadanaya uu noqonayaa mid wax qora in yar marka in laga baxo jahliga oo waxbarashada kor loo qaado oo waxbarashada dadka waaweyn la furo oo kaalinta annagu aan leenahay aan ka qaadano heer deegaan ahaan xafiiska arrimaha haweenka kaalinta heer degmo maamulka iyo xafiiska arrimaha haweenku leeyihiin ay kaalintooda gutaan waan iska kaashano in dumarka waaweyn wax la baro waxaa sidoo kale arrintani haweenka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Goday Mudane Cabdinaasir Maxamed marka dhinaca horumarka fiirno tusaale ahaan waxyaabaha hadda ay wasiiradda nagu baraarujisay waxaa kooka waxbarashada aan fiirno marka degmadeena cadaadle dhinaca gabdhaha ama dumarka say waxbarashada ku yihiin waxaan dhihi karnaa meelaha markaad fiirisid bilow waxaa jira sanadkan iyo sanadka hore haddana waa meelaha ugu liitay ka mid tahay dhinaca waxbarashada markaad degmadeena cadaadle fiirino wey marka waxaa loo baahan yahay hooyada waa muhiim waxa ilmaha wax bari kara waa hooyada waxa ilmaha aan wax bari karin oo iskuulka reebi karana waa hooyada taayirkana ogataan baa loo baahan ogtiin nin kastoo fiican maamaha waxaa jirta ingiriis nin kastoo fiican naag fiican baa ka dambaysa maamaha dhaha jirta ama gabar fiican baa ka dambaysa doorashadii xilliga Mareykanka Obama ninka la ku jiray ninka madow dadku waxay lahayn lama dooran kara nin Afrikaan oo ogtiin Kenya u dhashay islaantiisana waxay madow maamada markaas ay gabadha ku maamaaheen waan wax dhabo jiro way nin kastoo fiican waxa ka dambeeya gabar fiican maxaa loo yiri haddii gabdhaha inay wiilashooda wax baraan ama gabdhahooda wax baraan u diyaar garoobaan wax wala baran karaa baad ogtiin aabayaasha waxba ka murahayaan anuga loo diray iskuulka war uma haya anuga dugsiga loo diray war uma haya gabadha dugsiga loo diray ama iskuul loo diray war uma haya aabaha sida badan cidda wax og waa hooyada waxa la idinkaga baahay marka idinka maadaama hooyooyinka tihiin nolosha ciyaalkeena iyo baaba ciyaalkeena waxay ku jirtaa gacanteena inaan ciyaalkeena mustaqbalkooda baabi'ina oo aan meel madow oo mugdi aan geeyna inaan ciyaalkeena noloshooda iftiinkeena wax barna waxay ku jirtaa waa gacanteena gacan kale kuma jirto gacanta xataa ragga abayaasha kuma jirto haweenku waxay